boqolaal Soomaalida ku dhaqan magaalada Washington iyo nawaaxigeeda iyo kuwa kale oo isaga kala yimid gobolada kale ee Mareykanka iyo waliba wadamo kale ayaa ka qayb galay xaflad soo dhaweyn ah oo loo sameeyay Ilhaan Cumar oo dhawaan loo dhaariyay kursiga aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka. Jacfar Kukaay oo munaasabadaas ka qayb galay ayaa warbixintan inoo diyaariyay. kadib markii si rasmi ah loogu dhaariyay kursiga ay ku guuleysatay ee baarlamaanka Mareykanka waxa ay boqolaal ruux oo Soomaali meel kala duwan isaga yeertay oo soo dhaweynteeda magaalada Washington DC u yimid ay kula hadashay gobolka Virginia. Ilhaan waxa ay dib u milicsatay doorashadii ay reer Minnesota u doorteen in ay ka mid noqoto xubnaha ku metela Koongareeska. waxa ay tusaale u soo qaadatay 2 sano ka hor mar uu madaxweyne Donald Trump isagoo ololaha doorashadiisa ku jira booqday gobolkaasi si gaarana u weeraray Soomaalida iyo qaxootiga iyadoo xustay in guusheedu ay fariin cad u tahay Trump. And the people of Minnesota had a very clear dadka reer Minnesota fariin cad ayay u heleen isaga 2 sano kadib waxa ay yiraahdeen qaxootiga ma soo dhaweyno oo kaliya ee waliba Washington baan u dirnaa si ay noo matalaan. waxa ay soo hadal qaaday xanibaadda safarka ee dalal ay Soomaaliya ku jirto uu ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka iyadoo sheegtay in ay dhabarka isaga jabin doonto sidii meesha looga saari lahaa amarkaasi. I come from countries right now that are on the Muslim ban. anigu waxaan ka imid waddan ku jira kuwa muslimiinta ah ee laga mamnuucay Mareykanka. haddii mamnuucidani ay jiri lahayd 23 sano ka hor, haddii tirada qaxootiga ee la dhimay ay jiri lahayd 23 sano ka hor, aniga iyo qoyskaygu halkan ma aanan joognin. ma aanan heleen fursad waxbarasho iyo mid aan qoys ku samaysan karo. haddana aan dhammaantiin idinku matali lahaa Koongareeska. And now get to represent all of you in Congress. dad badan ayaan sawir buuxa ka haysan sida ay u nooshahay haweeneyda muslimka. waxa ay su'aalo badan ka keeneen cidda hagta habnololeedkeeda iyagoo rumaysan inaanay iyadu xor u ahayn tallaabooyinka ay ku dhaqaaqayso iyo go'aanada ay qaadanayso sida ay Ilhaan sheegtay. And today as we walked in to the United States Congress, we said we give ourselves permission to be maanta markii aan Koongareeska Mareykanka soo galnay ayaanu niri annaga ayaa ogolaasho isu siinay inaanu halkan nimaadno. sharaf baan ku lahayn halkii aan joognay iyo guryaheennii. Koongareeska sidoo kale waa meel aan xaq u leenahay. gabdhaheenna, hooyooyinkeen, ayeeyooyinkeen, eedooyinkeen iyo habaryaraheen waxay lafdhabar u ahaayeen bulshadeenna. have always been the backbones of all of our communities. waa baarlamaanka Mareykanka oo ah kan ugu saameynta badan dunida sanadkan ku biiray 2 gabdhood oo muslima. midood waa Ilhaan Cumar, tan kalena waa Rashida Tlaib oo asal ahaan ka soo jeeda Falastiin. Ilhaan waxa ay rumaysan tahay in Rashida ay cod u noqon doonto qadiyadda reer Falastiin ee daboolan. She understands what it means to be of heritage that is invisible. way fahansan tahay inay tahay qof asalkiisu aanu muuqan, aan laga hadlin, lana difaacin inay tahay. maantana codka reer Falastiin ee dunida oo dhan ayaa kor loo qaaday oo loo weyneeyay si aanan badankeen musawiran karin sanado ka hor. In ways unimaginable to most of us many years ago. For that fateful day, it's not far away. For now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a lady. dadkii socdaalka u soo galay ka qaybgalka munaasabadda lagu soo dhaweynayay dhaarinta Ilhaan Cumar waxaa ka mid ahaa fanaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Kaynaan Cabdi Warsame oo heesa aan muusig lahayn goobta ka qaaday. The screens it travels across the earth and seas from Somalia all the way to DC. qaar ka tirsan Soomaalida xafladda joogtay ayaa aragtidooda VOA la wadaagay. magacayga waa Hodan Aadan Xakiimaad Barsoora. waxay ka tagay habeen aad iyo aad u qurux badan oo u soo dagaalameynay almost 2 years. magacayga Caasho Abshir Ismaan Soomaali baan ahay wax badan oo Virginia
waa Cabdicasiis Cumar waxaan ka imiday gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka waxaan halka uga imiday ilaa maaragtay intaas saacadood aan u soo socday inaan maaragtay ka mid noqdo ama aan u joogo xafladan taariikhiga ah ama dhacdadan taariikhiga ah ee maanta ay ka dhacaysay magaaladan Washington DC 23 sano ka hor iyadoo qaxooti ayay ka soo degtay magaalada Washington DC maantana waxaa lagu soo dhaweeyay iyadoo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Mareykanka